arrintaas sool ee laas caanood kicinteeda lambar 1 laba nin baa iska leh oo la yiraahdo Fahad iyo Farmaajo cid kastaana taqaano doorashadii Soomaaliya markii laga soo guuleystay tugrigay degenay saldhig ka dhigteen iyagoo halka degan ayaa nimankii koonfurta Soomaaliya ee nimankaas lagu taay walaalo yiraahdeen niyahow Farmaajo xiriir la sameeyay waxa la yiri arrintu waa kala keena Fahad iyo Farmaajo taladay keenay waxay tahay lacag keena annaga arrintan xal u hayneen lacag soo bixiya indhaha meediana waa idinka jeedinayna maxaa xabaddo idinka yaraanaysaa mashruuca meel kale aanu ka furaynaa haddii koonfurta Soomaaliya laga xoreeyo oo la qabsado saldhig kale u baahanahay lacagta 4 milyan bay soo direen 2 milyan tugriga loo diray 2 milyan Addis Ababa loo soo diray safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa ee ina camay baa loo soo diray waa Farmaajo abtigi waxaan cadayn lahayn ama aan cadayn inaga hadhan marka horeba ku jiri kuteen uma socono cidna taagi mayno waxay soo hadhay 2 milyan loo soo diray Addis Ababa iyo 2 milyan oo loo diray tugriga 4 milyan bay al-shabaab bixiyeen Fahad iyo Farmaajo 3 gabdhood bay ka soo direen oo reer Somaliland oo marka horeba shaqaalahoodii ahaa xilligii dawladda Soomaaliya xukumayay 3 gabdhood Addis Ababa loo soo diray 2 nin oo jigjiga jooga oo mid madaxtooye waa afayeenka madaxtooyada jigjiga waxa la yiraahdaa Xasan Qaasim ninna waxa la yiraahdaa ina gaafadhiyo waa taliyaha booliska new booliska labadan nin ayaa loo yeeray gabadha aqalka hoose Addis Ababa haysata iyo safiirka iyo labadan nin jigjiga looga yeeray iyo 3 gabdhood 7 qof baa shir ku qaatay Addis Ababa waxay ka shireen in arrinta laas caanood la kiciyo garaada loo yeero jigjiga loogu yeero jigjiga lagula kulmo lacag 2 milyan afarta laga saaro oo 2 milyan safiirka loo soo diray wafti baa ka yimi sool garaada u badan jigjiga yimaadeen arrintaas may ahayn maxaa la yiraahdaa shir laguma qaban dadka waxa loo sawiray garaadada yimi jigjiga shir bay ku qabsadeen waa been wax ka jira male jawaa lagu qurxinayay lacag 2 milyan afarta laga saaray 2 milyan markii farta laga saaray khadka suumka la yiraahdo maqal araga fog baa waxa ku wada hadlay Farmaajo iyo garaadadii lacagta la siiyay waa baxeen nimankaasu sool bay ku laabteen 3 habeen bay u hoydeen marka jigjiga ka tageen taariikhda la soo baaro 3 habeen bay u hoydeen lasaanood habeen afraadkii waxa la dilay ninkii gudoomiyaha komishanka doorashooyinka lasaanood u qaabilsanaa Somaliland ee Hadraawi 3 habeen markay nimankii jigjiga ka tagay ay joogaan lasaanood ee lacagtan wixii lagu qaban lahaa iyo si dadka loo kicin lahaa laga baaraan dhigay la isla meel dhigay ayaa ninka la dilay oo masaajid ka soo baxay oo adeerkii reermiye ay wada socdaan oo meel shaah ku cabayaan kuraasi fadhiyaan ayaa nin qorisito madaxuu duway dul yimi xabadu feeraa kaga dhuftay tii labaad iska qabo isiri gacantu iskaga dhigay gacantay ka jabisay labada xabay isagoo qabo ku uu orday 3 xabo ka seegay markuu si cararayo aan ku dhicin 2 xabo ku dhacay 3 seegay waa 5 xabo xabadii lixaad lugtay kaga dhacday ninka waa dhacay waa loo yimi waa la dhaawac tiray 2 xabo lagu sii dhuftay waana laga tigay arrintan waa arrin la qorsheeyay subaxii reer laascaanood waxa lagu yiri hal doorkiina la laayaa ilaa waa wax muddo laga soo shaqeynayay ka kac sidii dhalinyarada dhagax tuur ku bilaabeen niman baa ka yimi sarax dheer uu hogaaminayo ninka gal ay garaad jaamacoon muddo badan ba laascaanood imanin baa yimi 17 sano ka maqnaa laascaanood isagoo ciidan sarax dheer lagu sameeyay wata oo maxaa la yiraahdaa calan wata ayuu soo baxay
markuu soo baxay Faysal Bootaan buu yimi isagoo ciidan wata garaadana wata Faysal Bootaan wuxuu ku yiri niyow maxaa socotaa waxa dhahan nabadayn wuxuu ku yiri niyow idinkoo caalankana wata ciidankana wata nabadayn uma socotaan laakiin waan ogahay waan aqaana inay garaadadii reer Sooltiin okay wuxuu yiri iska dhiga baabuurtan iyo caalankan iyo ciidankan oo taga magaalada way diideen waxana hadii ciidankan laga reebo caalankan laga reebo maba galeynaba Somaliland wafdi ka socday oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin ayaa tagay meesha laba goor uu Faysal celiyay nimankan iyagoo ciidan wata ana wata wafdigaas markuu tagay waxa lagu yiri Faysal Bootaan soo daa anaga wada hadlayno nimiye soo daa sababta lagu soo daayo horta nimanka intaas ay Faysal Bootaan hal afeef buu dhigtay wuxuu yiri war nimanka caalankaana wata ciidankaana wata nabadayn uma socdaan maxaa ka wada sheekadan ma ka daysaan walaga diido waxa soo daa wadayaashiisa salaadiintii anaga inoo yihiin salaadiin anaga wafti baa nala socda noo soo daa waa la soo daayay tii ka dhacday waa la og yahay iyada halka markay xaaladdu marayso aan ka soo noqdayaan halka uu sii gudbinay markay halka marayso Fahad iyo Farmaajo waxay u yeedheen gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland wuxuu Somaliland kaga tagay caafimaad laakiin Fahad iyo Farmaajo 7 maalmood la joogay tugrigu tagay 7 maalmood buu la soo joogay Fahad iyo Farmaajo lacag wuxuu ka soo qaatay taa waa soo waayay ma sheegi karo cadeyn uma hayo laakiin uu la kulmo 7 casho la joogay baan cadeyn u haya soo laabadku soo laabtay uu Hargeysa yimi madaxweynaha Somaliland bay sarkeen bariga uu amba baxay sool buu tagay gudoomiyaha baarlamaanka manus soo laaban Fahad iyo Farmaajo way ka guureen tugriga waxay u guureen gadar maalinta gudoomiye Khaliif soo laabtay Hargeysa yimi iyaguna tugriga way ka guureen oo gadar bay u guureen gadar markay u guureen 14 milyan bay soo direen waxa loo soo diray lacagta Yaman laba nin oo mid reer Somaliland yahay baa lagu soo hagaajiyay 14 gaaro technical lagu soo iibiyay qoryo yar yarba waxa laga soo dajiyay laas qore niman Yamaniina waday waa loo tababaray cidii loo tababarayay laas qore ka soo galeen iyo deegaan warsanganay bay ka soo galeen technicadaas halka markay marayso waxa la soo diray oo laga soo diray gadar ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waxaana loo soo diray Eritrea Fahad Yaasiin doon hubo ka soo diray Eritrea muu soo laaban bay mar labaad buu hadana doon kale ka soo diray intaas markay dhacday ayuu madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ogaaday intuu gadar tagay in macluumaad badan uu ku leeyahay safiirka Soomaaliya u fadhiya gadar inuu macluumaad badan ku leeyahay arinta laasan Sheekh Maxamed wax badan boogi wax badan buu ogi waxyaabuhu uga gaabsaday inuu arinta sool ka hadla ay ka mid tahay Xasan Sheekh Maxamed wuu baxay gadar buu tagay xilkii buu ka qaaday safiirkii halka joogay arintu markay halka marayso sheekadii waa la balaariyay waxa loo xiray shaar la yiraahdo harti adduunka waa la isugu yimi nimankii Soomaaliya xilalka ka soo qabtay ee madaxda Soomaaliya soo noqday ayaa shir qaatay la yiraahdo gudida daarood ee taakulaynta laascaanood baa loo bixiyay waa 20 qof hal gabadh baa ku jirta hodan la yiraahdo waxa gudoomiye ka Cabdiwali Gaas waxa gudoomiye ka xigeenka Farmaajo waxa xoghayn ka Faarax Macalin gudida dhaqaalaha waxa haysta Cabdirashiid Cali Sharmaarke way badan yihiin gudidaasu qofba meel baa la qaabilsiyay gudida arrinta daarood baa baashi loo bedelay shaar daarood baa loo xiray arrinta danay kuma jiro Axmed Madoobena kuma jiro iyo dadka lagu dambaabin agjarna kuma jiro iyo lagu eedin dadka gudida waxa kamida Farmaajo Cabdiwali Gaas Cabdirashiid Cali Sharmaarke Faarax Macalin wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ka qaramada midoobay safiirka Addis Ababa safiirka Turkiga ka Sacuudiga gudoomiye Khaliif Garaad Jaamac waa gudi 20 nin oo daarooda hal gabadh baa ku jirta hodan la yiraahdo dawladda China u shaqeysa gabadha waxa qabi jiray ninka qaramada midoobay hadda fadhiya kii ka horeeyay
magaciisii soo qabo ninkaasaa qaba ayaa qaba gabadhaasu China oo shaqaysaa waxay China ku tiri inta shirar la qaadatay dalkii yaray Taiwan ay naga go'ay dal yaro Soomaaliland la yiraahdo Soomaaliya ka go'ayay shuura koobeen aan ka hortagno hub lagula dagaalamo keena markaba China laga soo diray naagtaas hoggaan ka tahay markabkaas waa yimi waana la qaybiyay shan wadan baa lagu soo kala bedelay markabka oo markab alaabta laga sii bedelay si aan loo fahmin meeshuu ka yimi markabkaas alaabtii uu siday waxna sool baa loo soo diray waxna al-shabaab baa lahayd koonfurta Soomaaliya wixii tagay bar baa la qabtay dawladdu qabatay wax badanna way ka fakadeen hadda noo markabaa soo socda hadda aan kula hadlaayo markabaa soo socda markabkaas soo socda wuxuu wadaa reer Laascaanood ayuu soo roray ama waa la qaban doonaa meelahaas lagu arkayo la qabtay ama iyadoo la hadal hayo ama iyadoo la rogtay markabaa jidka ku soo jira bishan marka waa 10 cisho ka haray waxa laga yaabaa bisha kala dhexdeeda ama dhamaadkeeda inuu yimaado waayo bil iyo laba soo socda markab intaas markay dhacday dadkii waxaan aynu ognahay ma oga dadku waxa loo xiray shaar la yiraahdo Somaliland dhulbaantay way xoog sheeganaysaa dhulkooda ay ku haystaan xornimo u baahan yihiin Somaliland ha laga dhiciyo waa been al-shabaab baa saldhig looga rabaa meeshan faadiye farmaajo arinta ka dambeeyay caddayn qofkii u baahan inta ka badanna waxaan la wadaagayaa dhugmatiyo sira caddaymo inta ka badan baan soo bandhigaya waxaan halka ka sheegay hal xabo adin caddayn waayo dembiga aniga yeelanay fahad iyo farmaajo arintan kaliya ku sabab leh markii dambena way balaariyeen mashruucaas waa u shaqeeyay Puntland way isku dhacday imika berid weyto Puntland way isku dhacday sababta isugu dhacday iyaga ka dambeeyay fahad iyo farmaajo ka dambeeya waxay uga dambeeyaan in faroola loo dhaxmaray Puntland anigu beenta ma aqaan in faroola loo dhaxmaray lacag baa lagu siiyay inay Puntland isku dhacdo sababta Puntland ay isugu dhufanayaan maxay tahay daarood baa way rabaane maxay tahay waxa weeye waxay yiraahdeen dinay wuxuu nooga hiiliyay doorashadii berigii dhaweeytay dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh uu nooga hiiliyay madaxweynaha Soomaaliya maanta annaga dalka haysan lahayn hadaan fahad iyo farmaajo nahay laakiin dinay baa nooga hiiliyo codsiiyay Xasan Sheekh sababtaasaan ula dagaalamayna sababta loo galay Puntland waa sida marka horena way sii sheegeen in Puntland iyo Somaliland ay galayaan Axmed Madoobe waxba ma oga Allahi kaal ninka la yiraahdo in actor waxaanu ka sheekeen waxba kama oga wax badan oo jigjiga laga dhex wado oo dhaqaale ka mid yahay oo ciidan ka mid yahay oo hub ka mid yahay waxba yaa lagu eedin ninka actor waxba kama oga jigjiga jooga waxa ay soo haray Puntland ninka dinay la yiraahdo arinta Somaliland ka socota inta badan waxba kama oga dadka yaa la isa saarin arinta Laascaanood ee Puntland ay wado ay ciidan iyo dhaqaale kaga qayb qaadanayso Ahmed Kiraash baa hoggaanka gudida daarood buu ku jira asaga qayb ka asaga ciidanka keena asaga reer ku keena asaga maxaa la yiraahdaa kicin ku keena dhaqaale asaga keena shidaalka asaga keena ciidanka asaga keena dinay waxba kuma laha afku ka taageersan yahay mooyaane wax badan oo uu keeno oo gacantiisa ku keeno Ahmed Kiraash dinay ma oga wax badan oo ismaamulka Itoobiya laga keenana actor ma oga intaas waa intaas waxaan ku soo gabagabeynayaan arinta ku soo xidhaya warnimo yahood dadkii waa la kala baxeen gudidii dhaqaalaha aan ku sii darsaday dal kasta oo Yuruba lacag baa lagu xukumay dal kasta oo Yuruba ama gobol kasta oo Mareykana lacag baa lagu xukumay loo bixiyay inta korinta dadka Laascaanood malaayiin dollar baa la bixiyaa lacaga qaar baa xaniban lacaga wala bangiya loo furtay Garowe ku yaala maxaa la Kenya ku yaala maxaa la yiraahdaa jigjiga ku yaala meela loo furtay xamar lacag baa lagu hayaa $1 milyan baa lagu hayaa oo nimanka Rwanda lacag kale oo Turkiga laga soo diray oo intaan nimankaas Turkiga ka tagin la soo diray waxa nimanti Mareykanku lacag u leeyahay waxa nimantahay waxa waxa soo dhan inta la soo diray baa ka badan arintii markaa way isbedesho waxaan ku koobayaa maanta bahashi
nimankaa daarood horta arrintii way xumeeyeen madaxdii daarood ee dalka Soomaaliya soo xukuntay ee ra'iisul wasaareyaasha soo noqotay horta siyaasad way uga dhamaatay dambo Soomaaliya leeday iyagoo madax dal soo noqday bay maanta reer noqdeen marka horeba reer way ahaayeen ay la ficil ku noqdeen oo ay ku noqdeen maxaa la yiraahdaa ay kicinta reer oo guddi u noqdeen nin madaxweyne soo noqday ama ra'iisul wasaare guddi reer noqday بريتو لعيدي آمين ميسو نما قاسي أصور توا قد ماتي الدنبي أنا إلى فرش كلا فريا ما قرنا أرنت الله سعانود بكسو جبينية أرنت الله سعانود أرتوي دمانة إساسية كل ماتة أولاد ينبض ميت دونتا كل ماتة ويدمانة إسا لكن محل أي يحتاج نرهب واحدة معنا يماها شعب كاني كذا معنا ينين يجان كاني كذا معنا ينين دت كاني كذا معنا ينين لكن أولاد ينبض ميت ما كل معنا إس wax badan bay sii qaadanaysaa way riiq dheeraan doontaa laakiin way dhamaanaysaa Soomaalidu dabeecad bay leedahay inta la islaayo ayaa iyadoo meedka u yaala la heshiiyo hadana maanta ka dhimanaya wuxuu ku dhinto ma yaqaano kala dilayana lagu dil ma yaqaan nimankii meesha saldhigga looga reebaan ku soo koobay hadalkayga nimankii waa yimaadeen Fahad iyo Farmaajo waxay soo direen wax laala wixii ciidan ay iyagu soo tababarteen la shaqayn jiray waa la soo diro laascaanood baa la keenay aduu yahay kii ciidamada badda haystay Soomaaliya aduu yahay kii rooble eedin ila adul bugatay sarkaalka aduu yahay Cabdi Madoobe aduu yahay Xijaar dawladii Soomaaliya madaxdii ciidamada ka soo shaqaysay laba saddex nin mooyaan halkaas la keenay ciidamadii ay gacanta ku hayeen halkaas la keenay ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea waxa loo soo tababaray laascaanood laakiin waqtigooda ay saamixi waayo doorashadii baa laga guuleystay nimanka meesha loo soo waday halkan u bahay maalintii Xasan Sheekh uu keenayna xiriir waa laga waayay halkan u yimaadeen xiriir lagu rogay waa cadaan oo Soomaaliyeena way ogtay dadkuna way ogyiino waxa kontarina baa ku haray xerada meeshii yimaadeen halkan ay ahayd arrintii markaa shaarkaasay leedahay saldhigii al-shabaab meesha way ka heleen habeen kasta way yimaadaan iyagoo koox-kooxay degayin maxaa la yiraahdaa de saldhigii la rabay waa loo helay Somaliland bahashi shabagii loo dhigay waa gashay laakiin se uga baxayso ayada u taala ayada laga sugay ama olaad ku xaliso ama nabad ku xaliso Somaliland baa laga sugay laakiin arrinta ugu muhiimsani waa inta iyo in leegan hayo muhiimkuna waxa weeye hadii loo baahdo intan in laga kala ku daraya